Hadda waxaanu soo gaarnay waddanka El Salvador. Waa waddan yar oo ku yaala bartamaha Ameerika. Waxaa laga yaabaa in aadan horey u maqlin. Waxay haweenkani karinayaan raashin. Raashinkan waxaa laga cuni doonaa magaalada caasimadda ah iyo deegaanada ku hareeraysan. Dhammaantood dadkani waxay wada sugayaan gabalku inuu dhaco. Maxaa yeelay waxa ay ku jiraan bisha Ramadaan. Dhammaan kuwani waa muslimiin sooman. Dhulkan aadka u fog ayuu yimaaday gumaystihii Isbaanishka muddo laga jooga qarniyo. Halkan ayuu maamulay, dadkii halkan joogana waa uu laayay. Diintoodina waxa uu beddelay Catholic Kirishtan ah. Dalkan magaciisu waxa uu noqday dalkii Kirishtaanka baraxa la'aa. Laakiin hadda sidee bay muslimiintu ku yimaadeen waddankan El Salvador kaas oo wata magacaas? Inta badan muslimiintu waxay ku yimaadeen qaab hijra ah waddanka El Salvador, laakiin qisadeenna maanta waxay ka hadlaysaa qoys Kirishtan ah oo soo hijrooday. Ellos eran de una familia ortodoxa cristiana. Waa kan Emerson Buqayla oo ah hogaamiyaha muslimiinta El Salvador iyo walaalkiis Najib Buqayla oo ah madaxweynaha El Salvador. Waa la yaab. Dhab ahaantii sheekada muslimiintan waddankan ku nool waa mid lala yaabo. Tan iyo markii uu Kirishtaanka u beddelay gumaystihii Isbaanishka, waxaa ka soo muuqanaya dalkaasi muuqaalada iyo sidoo kale shacaa'irta Kirishtaanka. Waxaan ka hadlaynaa qisada aabbaha dhalay Emerson Buqayla, waana ninka lagu magacaabo Armando Buqayla. Waalidkiis ayaa ahaa Kirishtaan ka soo hijrooday Falastiin oo ay ciirsanaysay dowladdii Cuthmaaniyiinta. Waxay yimaadeen bilowgii qarnigii 20aad iyagoo raadinaya nolol wanaagsan. Hooyadiis Armando waxay ku dhalatay Beytlahem iyadoo ka soo jeeday qoys Catholic ah. Aabihiisna waxa uu ku dhashay magaalada Qudus isagoo ka soo jeeday qoys Orthodox ah. Labada qoys ayaa soo hijrooday waxayna ku kulmeen El Salvador, halkaas ayayna isku guursadeen. Qoyskaasi wuxuu ku noolaa nolol Catholic ah, markana waa sheekada Armando iyo Islaamka. Wuxuu wax ku baran jiray iskuul lagu barto Kirishtaanka. Wuxuu wax la baran jiray isagoo carruura walaalihiis. waxaa soo weeraray su'aalo fara badan oo shaki ku abuuray. Si la mid ah carruur kasta oo 11 jir ama 12 jir ah, macallimiintu waxay ahaayeen baadiriyo. waxa uu dhihi jiray baadirigu, ka bax howlka, waad ciqaaban tahay muslim yahow. Iskuulkana waxaa looga magacaabi jiray Muslim, saaxiibadiisna waxay ugu yeeri jireen haa waxaa yimid muslimkii. Armando ma aanu hilmaamin hadalka macallimiintiisa, waxaana soo weeraray eedeymo fara badan oo dhallinyaronimadiisa ah. waxa uu bilaabay inuu baaro, inuu akhriyo in ka badan diimaha. welina sidoo kaleeto maxaa yeelay waxaa ku hareeraysnaa walwal iyo wareer. waxa uu ogaaday Armando in waddanka El Salvador aanu ku sugnayn qof muslim ah. waxa uu ogaaday in su'aalahaasi ay yihiin kuwo adag. Armando ayaa islaamay isagoo 27 sano jir ah. waxa uu go'aansaday inuu El Salvador ka furo masjidkii ugu horreeyey. waxa uu ahaa 27 jir. wuxuu ku dhawaaqay shahaadateynka. waxa uu aabba go'aansaday inuu furo masaajid muslimiin la'aana. waa masjid aan lahayn muslimiin ku tukato marka laga reebo imaamka. waxa uu u soo gudbin karaa uu ka beddeli karaa dal wada Kirishtan ah. Armando ayaa doodaha diinta u arkay irid inay noqon karaan fahamka iyo barashada Islaamka iyo muslimiinta. waxa uu bilaabay barnaamij TV oo la magac baxay Aclarando Conceptos, kaas oo ka hadlaya Islaamka iyo asalkiisa dalka Falastiin. waxaan nahay 100% El Salvador. waxaan ku faanaynaa inaan nahay dadka dalkan barakaysan. sidoo kale waxaan ku faanaynaa asalkeenna Carbeed, si gaar ah inaan ka soo jeedno Falastiin. Islaamka ayaa ku faafay El Salvador ilaa uu gaaray meelo ka fogfog caasimadda dalkaas. waxaa ugu muhiimsan deegaanka Nawazalco
oo ay deggan yihiin dad asal ah. dadka halkani deggan dhibaato badan ayay ka muteen gumaystihii Isbaanishka oo saameyn weyn ku yeeshay ilaa hadda. dadka asalka ah waxay la kulmeen caburin sida gumaystihii Isbaanishka iyo xurnimadii kadibba. waxay ahaayeen fuqaro, waxbarasho ma haysan, guryo maanay haysan. sidoo kale waxay ahaayeen fuqaro heerka ugu hooseeya, raashin ma aanay haysan, isbitaallo ma haysan. islaamka ayaa halkan gaaray kadib markii mid ka mid ah dadka deegaanka Nawesalko uu Armando ka dalbaday gargaar. kadib caawimaadii Armando, dadka ayaa dalbaday inay qaataan diinta uu haysto Armando. sidaas ayay gebigood ku islaameen. waxaan lahayn boogihii dhaawacyada gumaystaha, wax dawaana umaynaan helin ilaa aan qaadanay diinta islaamka. masaajidii uu Armando dhisay waxaa dhammaystiray Emerson, waana 4 masjid oo ku kala taalla gudaha dalka iyo 2 kale oo ku kala taalla Guatemala iyo Honduras. sidoo kale madaxweynaha El Salvador Nayib Bukele oo ah walaalka Emerson ayaan isna hilmaamin taariikhda qoyskiisa iyo asalkiisa Carbeed ee Falastiin. halkan waxaan ku joognaa ku dhowaad 3,500 oo muslim. intooda badanna waa dad islaamka soo galay. sidoo kale waa dad u dhashay waddankan oo islaamka qaatay. waxaa asaasiga ay u baahan yihiin mujtamacan waa iskuul weyn oo nidaamsan. waxaan hadda nala jooga Nawesalko 500 oo carruur. waxayna u baahan yihiin iskuulna ma haystaan. waa in xilli hore iskuul la geeyaa si ay u noqdaan dad wanaagsan oo saalixiin ah.